kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku falanqeyn doono xaaladihii u dambeeyay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sirdoonka wadanka Itoobiya oo ka wada qorshe halis ah gudaha magaalada Muqdisho maalmo kadib markii uu gacanta u galiyay Mahad Salaad sirdoonka wadanka Soomaaliya. Villa Soomaaliya oo qorsheynaysa wadamada Masar iyo Imaaraadka Carabta in ay ku wareejiso ciidamada Gorgor iyo Haram Cad iyada oo caraweyn ay ka dhalatay. dhinaca kale waxaan eegi doonaa xaggee ku dambeeyeen ciidamadii Soomaaliyeed ee tababarada lagu qaadi jiray wadamada Eritrea iyo Turkiga. sidoo kale hadalhayn ka dhalatay Imaaraadka Carabta hadal ka soo yeeray oo iyana ka dhex abuuray siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. xog uu bixiyay wargeyska laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa tibaaxaysa hanaankii dib u dhiska ee wadanka Soomaaliya ka socday in ay dib u ridi karaan qorshayaasha guracan ee ay ka wadaan wadamada Khaliijka. waxaan sidoo kale eegi doonaa kacdoonkii ka socday wadanka Soomaaliya oo isna hakad ku yimid iyo waxa keenay hakadkaasi. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan soo dhawaada mar kale saaxiibayaal. waxaan idinka codsanaa marka hore inaad muuqaalka like la dhacdaan isla markaana aad sii share gareysaan. aan ku bilownay sirdoonka wadanka Itoobiya oo ognahay in maalmo ka hor lagu wareejiyay ama gacanta u galiyay Mahad Salaad waxay wadaan qorshe halis ah shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale guud ahaan siyaasiyiinta waxay leeyihiin arintan waa mid aan macquul lahayn. bal ugu horeyn faahfaahin kooban naga sii. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaa soo baxayso xogo sirdoon oo markaasi ay baahinayaan si talantaal ee wargeysyada laga leeyahay wadamada caalamka kuwooda ugu afka dheer. haddii aynu ka horneyno sirdoonka wadanka Itoobiya ayaa ka bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan gudaha magaalada Muqdisho kadib maalin markii uu ku wareejiyay taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA agaasimo ku-xigeenka guud ee sirdoonka wadanka Itoobiya hanaankii markaasi lagu difaaci lahaa gudaha magaalada Muqdisho gudaha dalka Soomaaliya iyadoo isbuucyadii la soo dhaafayba ay socdeen weeraro joogta ay qaadayeen kooxaha Al-Shabaab iyo waliba kooxo aan la garanayn haybtooda kuwaasi oo dilal bareer ka geysanaya gudaha magaalada Muqdisho. Itoobiya waxay khatar xoogan ugu jirtay in wadamada Imaaraadka iyo waliba sidoo kale Masar ay markaasi garaangal xoogan ku yeeshaan gudaha dalka Soomaaliya ayagoo arintaasi ka duulaya ayayna xiriir saaxiibtinimo oo dhow la sameysteen sirdoonka wadanka Soomaaliya. arintan ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay labada hay'adoodba in ay iska kaashanayaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo waliba sidoo kale la dagaalanka markaasi kooxaha nabadiidka ah ee dhaqdhaqaaqa ka wada gudaha wadanka Itoobiya iyo waliba sidoo kale Soomaaliya iyo in waliba dhinac kasta oo markaasi ku dhacsan ama ka soo horjeeda siyaasadda wadanka Itoobiya inuu san saldhig ku yeelanin isla markaana aysan looga soo duulin gudaha wadanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay wargeys labadoodaba ay ku baahiyeen baraha kala duwan ee sirdoonka wadanka Soomaaliya iyo kan Itoobiya. waxaan ognahay in 5 sano u dambeysay sirdoonka Itoobiya aysan cag soo dhigin taaka kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee xorta ah. maxay tahay waxa xilligan u sahlay in sirdoonkii wadanka Itoobiya oo ognahay gabre oo iskaga dhex qadan jiray Villa Soomaaliya goor hore ee laga xoreeyay sababta hadda u sahashay in ay dib uga soo laabtaan isla markaana qorshayaal guracan oo ayaga ay leeyihiin ay ka dhex fushadaan gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Villa Soomaaliya. aad baad mahadsan tahay Ilayso. waxaa soo baxayso xogahan ama ay tibaaxayaan in 5 sano la soo dhaafay gebihaanba aan ognahay in Itoobiya aysan wax galaan galo siyaasadeed oo la taaban karo hadday noqoto dhan military dhan sirdoon iyo waliba dhinac kastaba inaysan ku yeelanin wadanka Soomaaliya walow ay jiraan dhaliilo markaasi dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladii hore loo soo jeedinay taasi oo la xidhiidha in uu ku xidhay isla markaana isku siyaasad iyo fikir ay hayeen Abiy Ahmed iyo waliba sidoo kale Afwerki laakiin ma jirin wax sirdoon ah oo markaasi si toos ula shaqeynay isla markaana garab siinayay laguna arkay Villa Soomaaliya inay imaadaan 5 sano ee la soo dhaafay. laakiin waxaa jirtay 5 sano ka hor in uu jiray sirdoonka wadanka Itoobiya guud ahaanba in maamul goboleedyada dalka ay ku xidhnaayeen magaalada Addis Ababa madaxweynaha laftirkiisa uu tagi jiray booqasho kasta oo baxayo magaalada Addis Ababa halkaasi oo kulamo la qaadan jiray ra'iisul wasaarihii dalkaasi iyadoo waliba ay jireen xogayaha guud markaasi madaxtooyada inuu ahaaba gabre oo markaasi lagu arkayay in wax kasta oo markaasi dawladda ay soo saarayso bayaana iyo waliba sidoo kale in shir kasta la qabanayo uu ka soo dhex muuqan jiray. laakiin arinta haatan jirta waxay tahay maadaama Itoobiya
ay haatan xaalada adag ku jirtay walow la soo afjaray dagaaladii oo haatan wada hadallo laga gaaray laakiin waxaa jirtay in Ethiopia dagaalo xoogan gudaheeda ay ka socdaan burbur siyaasadeed oo xoogan ay ku dhacday 2 sano ilaa 3 sano ugu dambeysay arintaasi oo jirto haddana waxaa jirta caqabado xoogan oo Ethiopia haystay oo la xidhiidha webigan Abay oo ay isku haysteen ama biixireenkan Abay ee webiga Niil Masar iyo waliba Suudaan oo ayagana saaxiib dhow la noqday Soomaaliya markii isbedelku ka dhacay wadanka arimahaasi oo jiro suldaanka wadanka Ethiopia waxay ku qasbanaadeen in markaasi ay xiriir dhow la sameystaan kan Soomaaliya isla markaana ay ka caawiyaan waxyaabo aad u tiramo sida qoraalka lagu sheegay laakiin arintu sidaas maaha oo waxaan ognahay in shaqadii dhanayda loo igmaday sirdoonkeena inay qabanayaan Ethiopia taasina waxay ku tusaysaa in wadankii uu gacanta ka baxay maadaama sirdoonku uu yahay waxyaabaha markaasi ama dawladda sirteeda oo dhanba gacanta ku hayo in haddii sirdoon kaleeto uu meesha soo dhexgalo ay sababi karto in gebi ahaanba wadankii uu gacanta ka baxo sirtiisii iyo waliba sidoo kaleeto waxyaabihii markaasi looga fadhiyay hay'adda sirdoonka qaranka NISA waa tahay dhinaca kale waxaan ogeyn in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ay ciidamo ka qoranayaan wadamada Masar iyo Imaaraadka Carabta taas oo tirada hadba marka dambaysa ay sii kordhaysay ciidamada ay qoranayaan ama hadda ay qorteen balse xogtaas ka sii khatar badan ayaa hadda soo baxday oo ay Villa Soomaaliya qorsheynaysa baalay inay gabi ahaanba ay ku wareejiso ciidamada Gorgor iyo Haramcad in ay iyagu maalgeliyaan isla markaana ay danahooda ku fashadaan arintaas khatar intee leeg bay keeni kartaa sidoo kale xagee maraysaa ciidamadii ay qoranayeen wadamadan khaliijka ciidamadu horta way socdaan oo waxaan ogeyn in xogtan hadda soo baxaysi iyo xogahan markaasi sirdoon ee la helayo ay tibaaxayaan in ciidamadu ay gaareen ba xataa tiradooda 3000 iyadoo waliba markii hore loo qorsheeyay in ciidamadu noqdaan 10 aan ka wada 1200 laakiin haatan ay marayso 3000 haddii arintan ay sii socoto oo markaasi ciidamadan ay qoranayaan Masar iyo waliba sidoo kale ciidamada kale ee lagu wareejinayo hadda waxaan aad sheegtay in ciidamada Gorgor iyo Haramcad iyo dhamaantood lagu wareejinayo qadar aandhaha wadanka Imaaraadka iyo waliba sidoo kale Masar waxay arinta ku tusaysaa in laga maarmay wadankii soo tababaray ciidamada Gorgor iyo Haramcad ayadoo waliba ay soo baxaysay xoga tibaaxaysa in ciidamadii Gorgor aandhaha Haramcad taliyaashoodii la dilay sababta loo dilayna ay tahay in ciidamadani dhan la kala diro isla markaana gacan ajnabi loo geliyo waana arinta haatan imaatay يعني xilligeeda ku soo aaday iyadoo waliba ay jirto in ciidamada 3000 ee la qoray ay haatan ku sugan yihiin mid kamid ah xiryaha ciidamada lagu tababaro ee magaalada Muqdisho arintaasina waxa ka hormaaday taliyaal fara badan oo ay ka mid yihiin taliyaasha ciidamada sida kan booliska taliya xijaar iyo taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliyeed taliya Uduwa dhamaanba arintaasi ay ka biyadiideen ayaga laftirkoodana la dabacsan yahay sida la sheegay in markaasi ama xilka qaadis lagu sameeyo ama markaasi mishin loo dhigo hadii arintan lacalaba ay dhacdo in ciidamada looga cagaliyo wadamada shisheeye maxay Soomaaliya ee ku dambeyn doontaa su'aasha taas waaye waxaan ognahay wadanka Turkiga inuu san wax lacaga aan lagu siinin inuu ciidamo inoo tababaro inaan wax lacag lagu siinin inuu hub soo geliyo wadanka Soomaaliya isla markaana uu ku difaaco shacbiga Soomaaliyeed inaan wax lacag lagu siinin inuu isbitaalo ka dhiso magaalada Muqdisho kuwaas oo si bilaasha ay ummadda Soomaaliyeed lagu daryeelayo oo ugu dambeysay qaraxii ka dhacay Soobe aan ognahay in 400 oo kamid ah lagu daryeelay isbitaalka Digfar dhanka kale to waxa iyadana si bilaasha ay wadamada Qatar iyo sidoo kale to wadanka Turkiga ay ka wadaan magaalada Muqdisho dhismayaal iyo waliba sidoo kale maalgelin haday noqoto wadooyinka iyo waliba haday noqoto markaasi goobaha dawladda ayadoo arintaasi jirto hadii Masar iyo Imaaraad maxay ka faa'iidi karaa dabcan ma u malaynayo in wax faa'iido Soomaaliya ay soo kordhinayaan ayadoo aan ogeyn 2021 wixii Masar iyo waliba Imaaraadku ay ka geysteen wadanka Soomaaliya oo ogeyn in ciidamadii badbaado qaran la baxay ayagu maalgeliyeen in malaayiin lacag oo ayagu ay soo direen ugu qabtay garoonka in sidoo kale to hub sharci darra ay soo geliyeen wadanka Soomaaliya kaasi oo gabi ahaanba ay kala tashanin dawladda federaalka Soomaaliya in ay wali isku dirka wadaan maamul goboleedyada iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya hadii arimahaasi ba iyadoo jirto lagu hayo cadeynteeda sabab loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed dabcan ma garanayo waa tahay dhinaca kale xagee ku dambeeyeen ciidamadii Soomaaliyeed ee loo qaadi jiray ama lagu soo tababari jiray wadamada Turkiga iyo Eritrea sidoo kale waxaan ognahay in waayadan dambe ay istaagtay xaruntii ciidamada tababarka ee Turksom iyadoo oo aysan jirin ilaa hadda wax ciidamada oo Turkiga ay tababareen
waxaan ognahay tan iyo intii booqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wadanka eritrea iyo weliba sidoo kaleeto wadanka turkiga waxaa halkaasi ugu tegay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo boqolaal iyo weliba kumanaan ahayd oo u diyaarsanaa in markaasi loo yani loo soo celiyo wadankooda sifa ay oo qayb qaataan dagaalada ka socda wadanka soomaaliya ilasow haddii ciidamadaasi la keeno mushaarba looma hayo kuwii hore ayaan loo haynin marka arrinta su-aasho gaaban waxaa weeye ciidamadii kuwii hadda joogay wadanka ayaa u dacdaraysan mushaar la-aan iyo weliba dhaqaale la-aan ayadoo weliba maalin dhaweyto bayaan kasoo baxay hay-adda IMF ay sheegtay in wadanka soomaaliya hanaanka deyn cafinta iyo dhammaanba ay baalmareen oo shuruucdii habraacyadii dhan ay baalmareen musuq maasuq weyn lagu helay madaxda marka hadiiba ciidamada la soo celiyo maxaa la siini wax la siinaya malaha marka waxaa u roon inay halkaa iska joogaan ta kaleeto wax ciidana oo la qaaday ma jirto wadanka waxaa uu galay xaalad degdega waxaa sidoo kaleeto dagaallo meelo badan ay ka socdaan marka taas darteed wax ciidana oo haatan la qaaday haba ma jirto laakiin su-aasha taalla waxay tahay ciidamada waxaan ognahay saldhigga weyn ee turkisom ee magaalada muqdisho waxaa kasoo bixi jirtay bil kasta 2 bilood kasta ciidamo aada u tira badan oo markaasi tababar soo dhamaystay una diyaarsan inay markaasi ka qayb qaataan dagaalada inta aan la qaadin ama wadamada kaleeto loo qaadin wax halkaas ayaa lagu carbin jiray bedelkii turkisom waxaa haatan la adeegsanaya xerada dhiga badan oo lognahay inuu qarax ka dhacay maalin 2 beri ka hor halkaasi oo ciidamo aada u tira badan lagu tababarayay marka arrintu waxay ku tusaysaa in ciidamada masar iyo loo gacangelinayo imaaraadka ayay taa ku tusaysaa aad iyo aad dhinaca kale hadal ka soo yeedhay dowladda imaaraadka carabta oo cadhow weyn ka dhexdhalisay siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed haddaba hadalkaasi kasoo yeedhay imaaraadka muxuu yahay dhinaca kale shacabka soomaaliyeed marka ay dhagahoodu kasoo dhacaan imaaraadka maxay uga naxaan horta imaaraadka waxyaabo badan ayaa looga bartay kow waxaa looga bartay gargaar markaasi aan meel gaadhsiisanayn oo si degdega wadanka loo keeno cid la gaadhsiinin laha shacabka laakiin waa gargaar aad waxaan ognahay haddaan intaadan su-aashaada u gudagelin bil ka hor waxaa imaaday markab dhan oo sida raashin laakiin wax shacabka soomaaliyeed gaadhay gebi ahaanba ma jiro marka waa markab iska shareecan oo iska socdo oo eber oo sanduuqyo eber wado siyaasiyiintana marka lacagtooda loo daadinaya marka arrintaas waa looga bartay waxaa looga barto kaleeto in ay ciidamo intay sameeyaan ay siyaasiyiin u gacangeliyaan siyaasiyiintaasna ay shacabka ku gumaadaan ayadana waa looga bartay waxaa looga bartay in markaasi madaxweyne aysan rabin shacbiga inay intay malaayiin lacaga ay ku bixiyaan oo baarlamaanka kala gadaan inay sidaa kusoo geliyaan horey baa looga bartay haddii aan usoo laabtay su-aashaadii ahayd in hadalka ay sheegeen ee shacabka caarada ku dhalisay dhammaan siyaasiyiinta waxaa weeyo qaraxii ka dhacay xerada dhiga badan waxaa lagu tababarayay dhalinyaro soomaaliyeed waxaana halkaasi ku dhintay in ka badan 11 ka mid a dhalinyaradii halkaasi safka ugu jirtay rabtay inay ka qayb qaataan ama ka qayb noqdaan ciidamadaasi horta ma hayaan ciidamo soomaaliyeed su-aashu waa maya ciidamadaasi waxay hayaan ciidamadii loo tababarayay wadanka masar iyo weliba sidoo kaleeto imaaraadka iyadoo taas ay jirto oo ay basa ahayd imaaraadku kama aysan tacsiyeynin xasuuqii loo geystay boqolaalka soomaaliyeed ee qaraxii soobe waxay ka tacsiyeen qaraxaasi ay ku dhinteen 11 qof ee dhalinyarada ah marka taa waxay ku tusaysaa in ayaga danahooda bis ay ilaashanayaan dana soomaaliyeed iyo masiir soomaaliyeed toona aysan kala hadlaynin wax siyaasi ah ama wax siyaasiyiin oo soomaaliyeed marka caarada taas ayaa dhalisay imaaraadkuna waxaan ognahay qarxii soobe markaan u laabto taariikhda maalin dhaweyta dhacay 29 bishii Oktoobar in markaasi ay ahaayeen wadamadii ugu horeeyay oo gurmadka soo fidiyay wadanka Turkiga iyo Djibouti iyo weliba sidoo kale Ethiopia ayagii ayaana hadda gudaha wadanka Soomaaliya xagga dila fiiray dhanka dawladda ayaga ayaa cadow ka ah oo cadow kaliya villa Soomaaliya iska ilaalinayso waa saddexdaasi wadan waa tahay maxay tahay sababta imaaraadku ay uga tacsideeyeen qaraxii ka dhacay xeedar jarnaal dhiga badan sidoo kale qaraxyadii sooba ka dhacayna aysan uga hadlin ugana tacsideen dabcan ma rabaan in shacbiga Soomaaliyeed in yani wax dan ugu jirto in la xasuuqiyo in la xasuuqin toona laakiin dan ay waxay ugu jirtaa 10 ka dhalinyarada lacagta ay ku bixinayeen ee qorteen 10 ka bisi ayaga ka walwalsan yihiin laakiin boqolaalka kale la xasuuqay tan ka balan lacagtooda ka walwalsan 10 ka walwalsan dabcan ay ka walwalsan yihiin boqolaalka kale Soomaaliyeed hooyooyinka carruurta ayay ka walwali lahaayeen marka dabcan waa niman calooshadu shaqaystayaal waxaana u adeegayo kooxo kaleeto oo ayagana dawladda link la leh lacag malaayiin lagu siiyay contractigana markaasi ayaga ka soo qaatay imaaraadka iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib daawadayaal intaas aan ku soo koobaynaa barnaamijkii koobnaa aynu ku eegaynay xaaladihii u dambeeyay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tan intaan barnaamijkan kiisi xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa anagoo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo